السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada Hikachi channel. maanta waxaan qaadanaynaa cashar ku saabsan Soomaaliya maadaama aan ku jirno asbuucii xorriyadda shalayna ay ahayd maalintii xorriyadda dalka iyo qaranka Soomaaliyeed. waxaan jeclaystay maanta inaan la wadaago cashar ku saabsan xorriyadda. marka sidaa daraadeed casharkan wuxuu ku saabsan yahay Somalia Independence Day, maalintii xorriyadda Soomaalida. waana 1 June 1961 kolkii aan xorriyadda ka qaadanay gumaystii. kanaalka aad ka daawanaysa waa Hikachi, qofka ku soo jeedinayana waa Muxidiin Cabdi Cali. casharka aan horey u galno. marka ugu horeysa waxaan baranaynaa 3 qaybood oo ay ka mid yihiin. ka koowaad waxa weeye qaybta koowaad, it's our nation's birthday, waa dhalashadii qarankeena. maalinta 1 June 1960 waa maalintii qarankeena uu dhashay. saa daraadeed waa inaynu diiradda saarnaa waxyaabaha uu qarankeenu gaarka la yahay, waxyaabaha lagu garan karo deegaan ahaan, juqraafi ahaan, dadka ku nool, halka ay kasoo jeedaan, dowladda ay haystaan, inta uu la egyahay. waxyaalahaasaan rabnaa diiradda inaan saarno. sadaradeed qodobka koowaad aan ka hadli doono wuxuu noqon doonaa geography ama juqraafi ahaan Soomaaliya xageeba ay ku taalaa. Somalia is located, Soomaaliya waxa ay ku taalaa in the Horn of Africa, geeska Africa. Horn maxaa laga wadaa? waa geeska Africa ayay ku taalaa. Sharing borders, waxa ayna xuduud wadaag la tahay with Ethiopia, Djibouti and Kenya. Ethiopia, Djibouti iyo Kenya ayay xuduud wadaag la tahay. Okay, diversity, kala duwanaanshaha dadka. Somalia is considered, Somalia waxaa loo tixgeliyaa Africa's most culturally homogeneous country. wadanka Afrikaanka ah ama wadanka ugu badan ee Afrika ee waxa weeye dadkiisu ay yihiin mid isku mid ah. 99% dadka Soomaali iyo waliba 0.999 baan dhihi karaa dadka Soomaaliya ku nool waa dad Soomaali ah. dadka kale ma ogola in ay soo dhex galaan ama la noolaadaan, ama waxa weeye nama soo dhex gali karaan sababtoo ah waxa keenaysa meesha dad kale oo ku nool oo waxa weeye dadkaasi ay mataqaana garab ka dhiganayaan oo heshanayaan ma jiraan. saa daraadeed in la soo dhex galo waa wax aad u adag. waana runtii waxaan gaar lanahay oo dadka dunida ku nool meel walbo ay joogaan aan gaar kala nahay. diinteena waxa weeye dalkeena, dadkeenu waa aad bay unique ama waxa weeye gooni u yihiin. waana wax lagu faano runtii. ethnicity-ga ama waxa weeye faraca iyo asalka halka ay ka soo jeedaan. About 80% of Somalis are ethnic Somalis. 85% Soomaalidu waa dad asal ahaan Somalis ka soo jeeda. Sacmaaladii baa la yiraahdaa. macnaha asalka ereyga Soomaali hadda raadisid wuxuu ku geenayaa meelo kala duwan, qaabka loo bixiyay, waxa uu ku baxay iyo macnaha dhabta ee uu dadka Soomaaliyeed u sameeyo. runtii aad ayay ku anfici lahayd haddii aad raadraac ku samaysid. who have historically, kuwaasoo macnaha taariikh ahaan lived ku noolaa in the north of the country, waxay ku noolaayeen waqooyiga wadanka Soomaaliya ee hadda jira. macnaha waqooyigiisa ku noolaayeen. marka 85% dadka Soomaalida ah waa dad macnaha asal ahaan Soomaali ka soo jeeda oo dadka kale kama soo farcamin. sidoo kale taariikh ahaanna waxa aan ku noolaan jirnay waqooyiga wadanka. government, dowlad ahaan waa numberka afraad. Somalia operates, Somalia waxay u shaqeysaa as a federal parliamentary republic. republic waxa laga wadaa jamhuuriyad, parliamentarina waa baarlamaan ku dhisan. macnaha waxa madaxweynaha soo doorta ama ra'iisul wasaaraha baarlamaan. federalna waxa weeye waa federal waa iska taqaan. marka Soomaaliya waxay u shaqeysaa as a federal parliamentary republic, jamhuuriyad baarlamaaneed federali ah. siiskeeda ama xadigeeda waxa weeye Soomaaliya Catholic. Soomaaliya waxa ay dabooshaa ama waxa ay waxa weeye badkeedu waxa weeye badkeedu wuxuu uu yahay an area macnaha bad of about 637,657 637,657 kilometer square waa badka wadanka Soomaaliyeed. okay, the freedom we enjoy, xorriyadda aan ku raaxaysano waa qodobka labaad. marka waxaan rabnaa inaan ka bari to learn more about Somalia, wax badan ka baro Soomaaliya. send good wishes, macnaha
waxyaabo wanaagsan hambalyo iyo waxa weeye hadallo wanaagsan macnaha dadka wax fiican u rajee maanta maadaama aad faraxsan tahay dalkaaga uu xorriyad qaatay asbuuc xorriyad lagu jiro dadka ka farxi hadda waxa weeye qof wax siin ka dhow wax sii kii mataqaana miskiinka wax sii haddii waxa weeye aad ehelka soo booqan kadib soo booqo hadda waxa weeye wax walba oo wanaag u ah samayn kadib samee macnaha maanta sababta maanta kale waa maalin aan faraxsan tahay okay markaa faraxsan tahay wax wanaagsan baa la sameeyaa heesa iyo balaayo inta waxa weeye la soo qaato lama mataqaana tunto oo wax wanaagsan ayaa maalintaas oo kale lagu xusaa ee waxun lama isticmaalo okay spread the word erayga faafi mataqaana waliba waxyaalaha isticmaalsa kamid ah Somali Independence Day ayaa hashtag kusoo qorsa Facebook any social media isticmaalsa social media walbo isticmaalshad kusoo qor maadaama qof wadani aad tahay wadankaaga ka qayb qaado inuu xorriyadiisa aad dunida kale la wadaagtid maadaama aad faraxsan tahay dadka kale ha dareemaan farxadaada okay the meaning of our flag macnaha calankeena flag waa calan meaningna waa macnaha awarna waa waxa aan leenahay the meaning of our flag macnaha calankeena the blue colorka macnaha halkan waxaan kusoo qoray hooyo Soomaaliyeed oo u taagan si waxa weeye qab iyo waxa weeye Soomaalinimo ku jirto runtii waxa weeye dhexda haysata calankeeda ay ku labisan tahay waxay fiirinaysaa meel aad u dheer waxa weeye waxay ka fikiraysaa qarankii Soomaaliyeed waxay soo xasuusanaysaa waayo runtii waxaan sawirkan u soo qaatay maadaama uu macna aad iyo aad u tiro badan uu ka bixinayo calanka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan codsaday mataqaana waxaan jeclaystay inaan la wadaago idinkuna aragtaan soo qofka Soomaaliga u dhaqankiisa iyo waliba waxa weeye hidihiisa iyo calankiisa dhulkiisa uu ugu qurux badan yahay runtii sidoo the blue color calanka mataqaana qaybta ama midabka colorka waxa weeye midabka bluega ah symbolizes waxa uu tilmaamayaa the peaceful sky cirka ayuu tilmaamayaa and the 5-pointed star xidigta shanta madax lehna is the middle in the middle oo ku taala bartamaha of the flag ee calanka is the primary landscape of Somalia waa deegaanka ama dhulka asalka ah ee dadka Soomaaliyeed this star xidigtani is known as the star of unity waxa loo yaqaanaa xidigtii midaynta ama midowga and it represents waxa ay matashaa waxa ay matashaa the areas meesha ama goobaha where Somalis ay ku nool yihiin where Somalis dadka Soomaaliyeed live ay ku nool yihiin this includes waxa ku jira tan Djibouti Kenya's North Eastern Province gobolka waqooyi bari ee Kenya waa NFD waxa loo yaqaan Soomaalida taqaan Southern Somalia waa DDS dowladdeegaanka Soomaalida Southern Somalia laba jeer baan ku soo celiyay waxa weeye dowladdeegaanka Soomaalida iyo koonfurta Soomaaliya marka Western way kuwaas galbeedku waa Western sorry numberka saddexaad waxa la rabaa inaan ka dhigno Western Somalia okay kashanaadna waa Somaliland marka shanta qaybood ayuu waxa weeye xidigtana ay tilmaamaysaa okay Soomaaliya ha noolaato waxaan soo gaarnay gabagabada casharka waxaan rabaa inaan sidoo kale inuu ku jilbeeyo qayb ka mid ah gabay wadaniye oo uu abwaan Soomaaliya tiriyay sidoo kalena hees wadaniye laga sameeyay kan wuxuu leeyahay waqtiyada socdaalka ah ayaamaha silsilada ah xilliyada balsuureen soo jira hadaa tahay sadarada dib ugu noqo Soomaali waa kuma sinantaan la magacahay sankuneef lama ogoli inuu iga sarayn karo anaa garasho sogordahan sorya ruux ugama dhigo Soomaali baan ahay nina madax salaaxiyo kama yeelo seetada sasabada maqaayibo sirta waxaan iraahdaa sab'aan biyaha celin Soomaali baan ahay inkastoon sabool ahay haddana waa sariigta sacabada ma hoorsado saaxiibnimaan ahay cadowgayga lama simo Soomaali baan ahay sodcaalkaygu waa meel sahay daydu waa dacaar sohdintaydu waa caan
seeftaydu waa cudur naftu geedka iga suran Soomaali baan ahay nin isigay ma nabad galo nin isugayna maba jiro libta weli ma sii dayn gardarrada ma saacido nin xaq lana cid lama simo Soomaali baan ahay nabadaan u sahanshaa colaadaan ka salaalaa sooma jisto goobaha ninka nabarka soo sida gacantiisa kama sugow Soomaali baan ahay intaasaan kusoo gabagabeynaya mar raba inaan dheereeyo muuqaalka fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe saar haddii aad horey noola joogteen like saar maadaama aad wadani tahay dadka Soomaaliyeed ee aad jeceshahayna la wadaag dibad iyo dal meel walba ay joogaan Soomaalinimada ay u dareento maalinta xorriyadda iyo asbuuca xorriyadda si aan waxa weeye dunida kale ula wadaagna farxadeena aan tusno inaan nahay dad ku faraxsan halka ay joogaan horeyna jecel inay uga soo socdaan Soomaali baan ahay adigana waxaad tahay Soomaali